wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta xustay maalinta duumada soo warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Ismaan Daahiye. munaasabadan oo lagu xuseeyay maalinta duumada iyo toddobaadka talaalka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir dhaqaatiir ururada kala duwan ee caafimaadka iyo mas'uuliin kale munaasabadan oo lagu xuseeyay maalinta duumada iyo toddobaadka talaalka ayaa mas'uuliintii ka hadashay inta badan waxay ahmiyada siiyeen ka hortagga qaniinka kaneecada iyo in la fuliyo talaalada ururada kala duwan ee caafimaadka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan sidii la rabay talaalka ugu horeyn ayaa goobta waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali maanta oo kale waa maalin wacyigelina waa maalmaha lagu rabo in la xasuusto wixii shaqo la qabtay maalinta loo baahan yahay ummadda in lagu baraarujiyo maartay muhiimadda ay leedahay labadan mowduuc oo hadda la soo qaatay kala ah in la diriro talaalka cudurrada waxaan dhihi lahaa cudurrada talaalka loo hortagi karo in aad loo isticmaalo iyo malaariyada ma filayo qof hadda labadaas arrin talaalka iyo malaariya looga sheekeynayo inuu jiro u malayn maayo waagii hore Soomaalidu taariikhiyan duumay dhihi jirtay Saciid Maxamed Cabdul Xasan ayaa dishay sida macnaha taariikhda lagu xasuusto oo kuwagaas carriga kalorkiin moolin marka inta la xasuusay anagu Soomaaliyeedka ugu magac weyn xasuusada Saciid Maxamed Cabdul Xasan ka xasuusay dishay malaariyada waxa ka hooseysa kumanaan inta ay dishay oo kale oo la ogeyn duurka ku leysay yaan bayarayn sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo runtii garatay ahmiyadda maalintan oo kale ha noqoto dhanka wacyigelinta isxasuusinta iyo sida ay u weyneynayso una qadarinayso in bulshadu ay noqoto bulsho caafimaad qabta arrimaha duumadana iyo qasaaraheeda iyo dhibka ay geystaan kama sheekeyn karno waana wax sahlan oo laga hortagi karo ugu dambeynna goobta waxa ka hadlay wasiirka caafimaadka Marwa Fawziya Abikir Nuur loo baahan yahay talaalka faa'iidadiisa waa lagu dheeraaday marka waxaan ugu talagalnay xafladan aan ku soo koobnay labada munaasabadood in aan kor u qaadno wacyigelin fiican aan sameeyno in dadka la gaarsiiyo sidoo agaasimaha sheegay ma aha maanta kaliya isbuucan inay noqoto wax joogto ah oo aan ku wada dardaaranno oo aan iska wada kaalmayno aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha waaxda caafimaadka guud malaria madaxeeda human resources iyo talaalka shaqo fiican aan qabteen aad iyo aad u mahadsantahay ilaahay ajra idinka siiyo waa u wada mahadcelinaya hay'adaha naga kaalmeeya la dagaalanka cudurrada talaalka iyo duumada WHO UNICEF intiinaan ka soo qayb gashay kullee waa dad ku fadhiya maqaam iyo mansab ay ka go'an tahay inay naga kaalmeyso in aan la wada dagaalano cudurrada waa muhiim cudurka duumada in laga hortago lacag badan lagu bixiyaa dhimasho badan sanadkii dhacda waxaan qaban karnaa inaanan qabanin waa nagu ceeb talaalka sidiisoo kale lacag badan ku baxda anta oo kale waxa dunida siyaabo kala gedisan loogu xuseeyaa maalmaha duumada iyo toddobaadka talaalka Soomaaliya waxa ay kamid tahay wadamada sida aadka ah loogu xuso magaalada Muqdisho ayay ka dhacday xaflad ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya taa oo lagu xusay maalinta duumada iyo toddobaadka talaalka Maxamed Ismaan Daahiye telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada caasimadda ah ee Muqdisho